wanaagsan idil ahaantiinba kuna soo dhawaada qayb kale oo ka mid ah barnaamijyadeenu ku soo qaadan jirnay dadkan wax ka baran karno dadaalada ay sameeyeen noloshooda. Sheekadana waxaanu ku soo qaadanaynaa gabadh ka tagtay qaaradda Afrika oo xoolo dhaqasho ka bilowday dal ka mid ah kuwa Yurub. Sheekadeeda ayaa soo jiidatay indhaha ummadaha kala duwan ee adduunka. Als ich aus Afrika flüchtete, musste ich mir eine Arbeit erfinden. Markii aan Afrika ka cararay, waxaan ku qasbanaa inaan shaqo helo. Waxa la oran karaa waxaan ahaa qof hal abuur leh. Mit starkem Willen alles möglich ist. Waxayna tustay inay lahayd rabitaan adag oo ay ku meelmarisay doonisteeda. Frasilingo im Fersental. In der Provinz Trentino. Frasilingo oo ku taala waqooyiga Talyaaniga waa deegaanka cusub ee Agito. 8 sano ka hor ay halkan timi iyadoo qaxoontiya waxay hirgelisay warshad caanaha riyaha ka samaysan noocyo kala duwan oo ah burcadka la engejiyo ee farmaajada loo yaqaan. Ich würde sagen, am Anfang war das schon etwas seltsam. waxaan odhan karaa bilowgii hore waxa ahayd wax lala yaabo ama mar la araga in qof ajaanib ah haddana madow ah uu dego meel qof kastoo ajaanib ay adag tahay inuu aamino balse muddo kadib waxaan arkay furfurnaanteeda iyo qalbi wanaagga ay dadka deegaanka ku soo jeedanayso iyo sida ay u dhex gashay. annaga wax weyn ayay nooga dhigan tahay waana noo muhiim inay halkan joogto. runtii waan ku faraxsanahay inay nala joogto. Ist Ihre Anwesenheit hier sehr wichtig. Ich bin froh, dass sie da ist. Signorina Cannella. Na, Fräulein Zimt, wie geht's? riyaheeda ayay af Talyaani kula hadashaa. saaxiibaday sidee tihiin? oo halkee ayaad gashay maanta? ma waxaad ku fadhiisatay wasakh? dhammaanta wasakh ayaad leedahay. Anständige Fräulein setzen sich doch nicht da rein. Wie ist es denn gelaufen, Zakaria? Gut? sidee ayay maanta shaqadu ahayd Zakariye? way fiicnayd runtii. Zakariye waxa uu hadda helay mar kale 160 riyaad oo ku raaci doono buuraha Talyaaniga. noloshiisa hore ayuu mar kale ku laabtay. soo sidaas maaha Zakariye? runtii waa sidaas. way ku dhowdahay inaan mar kale noloshaydii helay. Ja, fast alle. Agito kannte Italien bereits. Agito hore ayay Talyaaniga u taqaanay. waxay halkan ka heshay deeq waxbarasho oo heer jaamacadeed ah iyadoo dhammaysatay barashada aqoonta cilmi nafsiga ee psychology-ga. jaamacadeeda kadib ayay dib ugu laabatay waddankeeda Itoobiya balse 2010 ayay mar kale dib ugu soo laabatay Talyaaniga. markan iyadoo qaxoonti magangeliye siyaasadeed doon ah. Dann ging sie zurück nach Äthiopien. Doch 2010 kam sie zum zweiten Mal, diesmal als politischer Flüchtling, wieder nach Italien. muddo markii ay xaalado kala duwan waddankan ugu noolayd waxay hindistay inay buuraha dalka Talyaaniga riyo ku dhaqato. Meine Vorfahren sind nomadische waxaa tafiirtii hore ahaayeen xoolo dhaqato reer guura ah. waxaan ka shaqeeyey mashaariic kala duwan oo intooda badan lagu caawinayay xoolo dhaqatada iyo reer guuraga. waan halkan ku jeclaaday shaqada riyo dhaqashada ah. waxaan si gaar ah u jeclaaday barashada xanaanaynta xoolaha iyo ka faa'iidaysiga wax soo saarkooda. markii aan Talyaaniga imi waxaan ka helay dhulka iyo buuraha cagaaran. waxaanan go'aansaday inaan riyo dhaqdo anigoo ka faa'iidaysanaya dhuldaaqsameedka la isaga tegay. sidaas ayaanan ku go'aansaday inaan halkan riyo ku dhaqdo. waxaan ku bilaabay xanaanaynta 15 riyaad oo la iska daayacay kuwaas oo ku dhowaa inay darxumo u dhintaan. maanta waxay noqdeen 180 riyo ah. Da hat diese fixe Idee begonnen, die aufgelassenen Weiden wieder zu nutzen.
und die traditionellen Ziegenrassen wieder einzuführen. So habe ich die gefleckte Ziege aus dem Fersental entdeckt, die nahezu ausgestorben war. Ich habe mit 15 Ziegen begonnen. Heute sind es 180. waxaan ku doortay deegaanka waa inaan abuuro shaqo dhaqameed hore u jiri jirtay dadkuna ku tiirsanaa taasoo deegaanka iyo dadkaba waxtar u leh. Warum die traditionelle Rasse? Weil die sich ausgezeichnet an die hiesige Natur anpasst. Ich wollte auch etwas Authentisches auf die Beine stellen. Zaccaria! Wie kommen Sie dir vor, Zakaria? zakariye sidee ayaad shaqadu kula muuqataa si fiican runtii waan la haystaa ma la qabsatay ma waxay kula eg tahay inaad deegaankaagii hore iyo hoygaagii dib ugu laabatay halkii aad xoolaha ku dhaqan jirteen sidaas miyay runtii kula tahay haa runtii sidaas ayaan dareemayaa. Er hat immer mit Kühen, Schafen und Ziegen gearbeitet. Als ich ihn fragte, ob er zu mir arbeiten kommen will, hat er gleich eingewilligt. wuxuu ahaa xoolo dhaqato markii uu dalkiisa joogay waa wiil dhalinyaraha oo dalka Maali ka soo jeeday riyo lo iyo adhi ayuu raaci jiray markii aan shaqaale doontay wuxuu ahaa kii ugu horeeyay ee codsaday maanta waa maalintii ugu horeysay ee shaqada wuxuu la qabsan doonaa inuu xoolo ku dhex raaco Yurub adhi jirta u shaqaynaysa Agito dhammaantood waa wada qaxoontii Zakariyana 4 sano ka hor ayuu Talyaaniga yimi wuxuuna shaqada ka helay wakaalad dadka ka caawisa helista shaqada. Eine Arbeit, die mir gefällt. Es ist eine Arbeit, die ich gut kenne. Bei uns beginnen die Kinder. waa shaqo wanaagsan runtiina maaha shaqo aan ka helay oo keliya ee waa shaqo xataa aan si fiican u aqaano annaga carruurtu 4 jir markay gaadhaan ayay bilaabaan inay xoolaha raacaan waana sababta aysan u helin fursad waxbarasho annaan ilaa hadda bilaa jaamacad u ahay. Denn es gibt bei uns nicht die Möglichkeit zu studieren, wie hier. Die Flüchtlinge haben eine starke Ausdauer. Unsere Arbeit ist physisch anstrengend, auch was die Arbeitszeiten angeht. Aber sie halten das aus. waxay Agito leedahay mar kale qaxoontigu waxay leeyihiin adkaysi badan iyo dulqaad shaqadan oo ah mid adag oo socod iyo adkaysi u baahan marka la eego waqtiga la shaqaynayo balse iyagu way u adkaysan karaan markaynu ka hadlayno dhalinyarada Talyaaniga oo iyagu bilowga hore xiisa u qabaynayeen sida ay tahay nolosha baadiyaha iyo xoolo dhaqashadu muddo gaaban kadibna isaga xiisa dhaca balse dhalinyarada soo galootigahi waxay lug kaga soo gudbeen saxare waana kuwa ka adkaysi badan dhalinyarada halkan ku nool waxaan u jeedaa waa kala jaad dhuldaaqsimeedka xoolaha la daaqsan karo oo dhan ayaa noqonaya mid marba marka ka dambaysa ciriiri sii gelaya way magaalooyinku ku fidayaan balse Agito waxay ka faa'iideysanaysaa dhuldaaqsimeedka ay dawladdu u ogolaatay waxay markii hore tijaab ahaan ku bilowday hadda waxa uu isku bedelay shaqada dhabta ah ee nolosheeda ku maarayso taasoo durba u muuqanaysa mid si mustaqbal leh u koraysa. Hergekommen. Das zweite Mal 2010, da musste ich wirklich abhauen aus Äthiopien. Es gab politische Probleme. Wir leisteten markii hore jaamacada ayaan halkan u imi markii xigtayna waxaan ku qasbanaaday in 2010 aan Itoobiya ka soo cararo kadib markii siyaasad ahaan la beegsaday waxaanu la dagaalanay gumaystaha dhulka iyaga damaaciyay balse hadda waxaanu dhaxalay xukuumad gumaystihii ka daran oo dhulbeereed iyo daaqsimeedkaanu lahayn la wareegaysa waxay iska siinaysaa shirkado shisheeye oo maalgashi doonaya dhulkaaga ayaa ciidamada militariga iska imanayaan waxaana lagu sheegayaa in shirkada Hiblaayo ay degayso haddii aad diidana dhibaato ayaad la kulmaysaa kuwii damaca militariga diiday waa la laayay kuwa kalena waa la ugaadhsaday kuwana xabsiyada ayay ku dambeeyeen ka buuxaan tan iyo bilowgii sagaashamaadkii waxa hay'adaha xuquuqda aadanaha u dooda ay dhaliilayeen ficilada xukuumadda Itoobiya ee ku hayso
hayso dadkeeda. Sanadkii 2015 oo keliyana boqolaal ayay ciidamadu toogteen, kumanaan kale waa la xidhay. Caburin, cabsigelin iyo jirdilkuna waxay dalka ka ahaayeen wax caadiya. Ilaa iyo 2010 waxaan ku jiray xaalad cabsi iyo cadaadis leh. Mararka qaar waxaan ku qasbanaan jiray inaan dhunto si aan nafteyda u badbaadiyo. Sheekada Agita waa mid dheer, balse waxay leedahay dhammaad murugo leh. Qaybaha dambe haddii aad la socoto ayaad ogaan doontaa halkay sheekadeedu ku dambayso. Intaan tan iyo sheekada tan xigta isugu imaanaynina waxaan idinka tegayaa nabadgelyo. Sono fortunata perché avevo Ich hatte Glück.